Dahabshiil, your trusted financial partner. tahay maalin jimca oo bishii saddexaad ay afar tahay sanadka 2022 waxaanu halkan annagoo shirkadda Dahabshiil Group aanu ka bilownay biyadhaamintii iyadoo ay nala joogaan xildhibaanadii gobolka degmada madaxdii ama guddida abaaraha ama taakulaynta abaaraha waxa halkan shirkadda Dahabshiil Charity Foundation ay gobolkan togdheer ugu deeqday 300 booyadood 300 booyadood waxa 75 booyadood waxa la siiyay daad mareed 51 booyadoodna waxa la siiyay degmada Buuhoodle 174 lawd ayaa u soo haray degmada Burco ama gobolkan togdheer degmooyinka tuulooyinka hoos yimaada saaka wajigii koobaad ayaanu bilownay oo aan insha Allah doonayno in lagu diro ilaa 60 booyadood dhowr iyo 50 booyadood 58 hadda wixii ay gaaraan fayskii koobaad weeyaan labada inta kalena laba fays oo dhammaan kala diri doonaa hadii la haydmo waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa guddida abaaraha taakulaynta abaaraha oo iyaguna aad iyo aad isaga xilsaaray soo ururta booyadaha iyo isku keenida iyo isku xirkooda iyo coordinationka booyadaha iyo shirkadda Dahabshiil iyo gaarsiinta dadka haraadan marka insha Allah sidaasaan hadii la haydmo aanu ku bilaabi doonaa maanta oo ay ku amba bixi doonaan ugu horeyn waxaan u mahad celinayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahayna waxaan inoo weydiinayaa dhamaanteen inuu inoo naxariisto cirkana Ilaahay subhanahu wa ta'ala madar khayr qabeen ka siiyo dadka dhibaataysan Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu madar khayr qaba oo degdega ila oo lagu intifaaco Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo shubo inta kadib waxa mahad mudan runtii iyaguna shirkadda Dahabshiil Group oo runtii mar walba baahiyaha bulshada iyaguna ka turjumo oo ka qayb qaata waxyaabaha taagan maanta oo ay taagan yihiin biyadhaamis iyo abaarana biyahaas kaga qayb qaatay oo inoo sheegay gudoomiyuhu runtii marka koowaad iyagana waan u mahad celinaynaa waan u ducaynaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu xoolaha u barakeeyo meesha ka saareen wax khayr qabad ugu bedelo anigu aan afkii guddida ku hadlaaya taakulaynta iyo tabarucaadka abaaraha ee gobolka Togdheer waan ka gudoonay caawimadaas iyo deeqdaas ay runtii dadka u bixiyeen annaguna sida ay tahay un baan insha Allah ta'ala u gaarsiin doonaa sida dadka gobolka ka warhayo ama laga og yahay tuulooyinku ma biyaha la geeyaa imika oo waxa la hayaa waa wax kooban tuulada dadku ku urursan yahay tuulo laga tagaana ma jirto tuulooyinkuna liis bay ku jiraan sida u kala waaweyn yihiin way u kala biyo badan yihiin waana u kala horeeyaan waqtigoodu oo booyad maalin walba tuulo helaysa iyo tuulo labadii maalmood helaysa iyo tuulo magaaysa laba helaysa iyo tuulo mid helaysaba iyo tuulo dhowrkii cisho mar helaysaba sida u kala dad badan yihiin baan loo qiimeeyay cid laga tagaana ma jirto waana la wada gaarsiinaya insha Allah ta'ala dadkuna waa isku mid aad iyo aadna u mahadsantiin shirkadana runtii waan u mahad celinayaa deeqdaas ay bixisay waana ka gudoonay haddaan guddideenahay sidii ay tahayna insha Allah ta'ala way u socon doontaa oo waa loo gaarsiin doonaa maanta waa maalin jimca Ilaahay baa mahad leh waxaanu halkan uga mahadnaqaynaa Dahabshiil Group oo had iyo jeer baahida dadweynihiisa iyo bulshadiisa ka qayb qaata markasta oo aafooyinku dhacaan wuu ka qayb qaataa waana shirkadda ugu horeysa ee dadkeeda la dareenka maalka aad bixiseen Ilaahay ajar iyo xasanaad haydinka siiyo miisaanka xasanaadka haydinku daro maalka u hadhayna Allah u barakeeyo aad baan ugu mahadnaqaynaa annagoo afkii deegaanka ku hadlaynaa 174 booyadood oo degmada loogu talagalay ayaanu maanta halkan makhraati kaga nahay difaaddii ugu horeysay ayaa guurayso oo 59 booyadooda Allah ha barakeeyo sida guddida abaaruhu iyo gudoomiyaheedu sheegeen tuulooyinka ayaa loo qaybiyaa
si wanaagsan oo midnimo ah oo xogoogaala ayaa loogu qaybiyaa. intaa ka bacdi waxaan aad ugu mahad celinaynaa shirkadda Dahabshiil Group oo degmada soo gaarsiisay 174 booyadood oo loogu talagalay deegaanka degmada hoos yimaada in la gaarsiiyo. runtii maanta halkan waxaa ka baxaya 59 booyadood oo barbilow u ah in la gaarsiiyo deegaanada ay abaaruhu saameeyeen. hore waxaynu uga barannay shirkadda Dahabshiil xilliyadan oo kale markii waqtigu uu adag yahay shirkadda gurmadka ugu horeysa ee dareenka inta badan bulshada ku dhaqan Jamhuuriyadda Soomaaliland gobol kasta ay joogaan la danqatay inay tahay shirkadda mar walbana barbar taagan ee dhaqaalaha ugu badan ku bixisa arrimaha bulshada iyo dhibaatooyinka bulshooyinka soo food saara in ay tahay markhaati baanu ka nahay. maalintii dhaweyd ay lacagta wareejinayeen markhaati baanu ahayn. maanta biyuhu ay baxayaan oo ay deegaanadii gaarayaan markhaati baanu ka nahay. waxaanu leenahay Allah halkii aad ka soo saartay wax khayr qaba ha kuugu bedelo. maanta maalin ay bulshadu uga baahi badan tahay in wax la soo gaarsiiyo may jirin waana soo gaarsiisay mana noqon doonto deeqdii ugu horeysay ee soo gaadha. insha Allah waa barbilow fiican. ilaahayna waxaanu ka baryaynaa in raxmaadkiisa iyo nimcooyinkiisa uu inoo shubo. Dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududaynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyey in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaaradda Yurub. abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helaya adeegga e-Dahab ee moobilkiisa gacanta. waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada Dahabshiil ee dunida taxalladeeda. Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.